waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo inaan u guto dhammaan xilka iga saaran xafiiskayga sida ay ku jirto danta cadaaladda oo kaliya barakallahu fiik waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aad ka weyn ee maanta la dhaariyay aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha runtii waa xil weyn waa xil miisaankiisa leh waa xil mas'uuliyadiisa leh ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhigo mid ku sifooda aayadihii uu hadda sheekhu inoo akhriyay hadii la hayra helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaduna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga haddii ay noqoto horumar haddii ay noqoto amni iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad helitaanka cadaaladuna waxa weeye waa mas'uuliyad wadareed saaran qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto golayaasha kala duwan aniguna waxaan ay qofka mas'uuliyadda koowaad ay ka sii saarantay marka dhammaantiin waxaan idinku codsanayaa marka koowaad inaad iigu ducaysaan in Ilaahay xilkaas ii fududeeyo ina waafajiyo xaqa iyo cadaaladda igana dhigo mid ummadda Soomaaliyeed ugu adeega cadaalad dulmina aan falin insha Allah ta'ala marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaadna waan u mahadnaqayaa madaxweynaha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin iyo habeen waxaan ka fikiraynaa sidii aan ugu keen lahayn cadaaladda ay ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fududeeyo cadaaladuna waa ognahay waa aasaaska waa dhaxaadka dal weey hadduusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo adeegii ummadana lama fulin karo aasaaska noloshu waa cadaalad waana xaqiiqa ummadeenu mudooyinkii la soo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameynay daraasad waxa meeshu dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeen in loo baahan yahay dib u habeentaasna ay maanta bilaabatay in noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameeyno golahaas adeegana mas'uuliyadiisa uu la wareego si cadaalad u noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kale oo doonaynaa inaan sameeyno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhageysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo oo gacan ka siin doona insha Allah sidii hawshaasi ay kugu fudaan lahayd haduu ay biiraan hawshan hawl sahlan ma aha annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo koow cadaalad ka tahay inaan saxno si Ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno haddaysan cadaalad jirin guul Ilaahayna siin maayo noon naxariisan maayo maxaa yeelay mas'uuliyadda koowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda weey haddii aadan cadaalad lahayn ama aadan cadaalad samaynin amni ma dhisi kartid sidaas darteed gudoomiye mar kale annagoo dhan waa kugu duceynaynaa hawshaan hawl sahlan ma aha laakiin waxaan hubaa inaan la imaanayso daacadnimo iyo qalbi wanaagsan annaguna aan ku garab taagannahay wax alla wixii aan ku tari karno aan ka caawin karno aan sameeyno ummadda Soomaaliyeedna ay gacan kugu siiyaan ilaahay inuu ku fududeeyo ama santiin kulligeed